السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة بأيان دب سوسو نقني إن مقعي وحلي هذا ياسين عبد الله عبدي وحان دقنا هاي إن مقالة يوتيوبوري دالك سويدن نسياسيو ماشي شوغان هاي dadkayga Soomaalida macnaheena wax badan u faa'iideeyay ayaan ugu talagalay anigoo mar walba ka fiirinaya dhanka aqoonta iyo inaan wax xaqiiqada ku saleysan aan mar walba idin soo diyaariyo muddooyin fara badan oo hadeertan ayaamahan aan ku jiray arrimahan maadaama aan filmo taxana ah oo aniga iskay aan ugu talagalay inaan idin la wadaago ayaa misana waxa dhacday su'aalo kale oo waalidiinta iyaguna ka yimid oo aan u arkay inay marmarka qaarkood iska fiican tahay taxanaha iyagaas inaan marmar aan soo dhaxgelino su'aalaha idinkaga yimid dad waalidiin fara badan baa ii tahniyadeynaya ii hambalyeynaya u arka waxa aan anigu wada in ay maaragtay wax wanaagsan ay tahay marka waxaan idinka codsan lahaa macnaha haddii aad u aragta inaad wax wanaagsan anigu aan hayo waxaan la jeclaan lahaa in aad muuqaaladan inaad la wadaagtid dadka kale oo waalidiinta kale oo Soomaaliyeed si aan iyaguna aan xiriir ula yeelano dhibaatadana haystaa waxay tahay macnaha qof walba warbixinta uu helo macnaha warbixinta isaga unba isku ekeysiya laakiin haddii la share gareysid dadka kale oo waalidiinta kale waxa laga yaabaa wax badan inay inoo hagaagaan oo mujtamaceena Soomaaliyeed maaragtay ay talaabooyin wanaagsan ay qabtaan caruurteena ay noo badbaadaan noo hagaagaan oo dariiq wanaagsan ay qaataan hooyooyinka waxaa jira qaar caruur yar haysta oo su'aalo dhowr fara badan ay soo weydiiyay maadaama aan dhowr mar ku celceliyay caruurta yar inta ay yar yihiin baa laga bilaabaa abaabintooda iyo koriimadooda waxa ka yimid marka su'aalo ah maxaynu qabanaa annaga waxaanu haysanaa caruur yar oo waalidiinta markaan isku daray adigu eber ilaa 12 jir macnaha eber markaan leeyahay waxa weeye caruur aanan sanad buuxinin hooyooyin iskale iyo ilaa iyo kuwa 12 jirka ah waxaan ugu talagalay inaan tusaale iyo idinka siiyo anigu runtii maahi nin ku takhasusay arrimaha yani caafimaadka iyo waxaas iyo caruurta ku takhasusay maahi laakiin waxaan u leeyahay khibrad badan baan u leeyahay oo dhinaca caafimaadka iyo waxa la xiriira macallin baan ahay xitaa waxa weeye dhowr meelood baan aan galgalaa ma garanaysa waayahay waxa aanu caruurta marka ay horta yar yihiin inta ay yar yihiin ba waxa lagu bilaabaa inaad adiga iyo caruurtu aad kala dambeysaan inaad leedihiin xuduudo idin kala soocan kala dambeyntu waa wax aad iyo aad u muhiimsan macnuhu waxa weeye caruur 12 jir ah marka ay intaasay gaaraan markaasay ma abaabin kartid oo way kugu adkaanaysaa inaad tiraahdo isagoo 12 jir ah waan ku toosinayaa macquul ma aha ma soconayso marka waxay imanaysaa adiga iyo caruurtii inaad madaxa isla gashaan oo aad markaasay dhibaato kale hor leh ay idin timaado ciyaalku waxay u baahan yihiin waxyaalaha la yiraahdo foojignaan ama uppmärksamhet yani ilmahaaga inay helaan foojignaantaada attentionkaaga inay helaan waxay u baahan yihiin macnaha in ay waalidiintood ka warqaataan waxaan arkay dhowr mar kulli idinkuna aad aragteen hooyooyin suuqyada maraya oo telefoonku halka ugu jiro ama waalidiin kale to xataa ilmihii telefoonku sabaya intii ay waqtigooda siin lahaayeen intay u soo jeestaan kada loobsadaan isla ekeysiyaan isla simaan cunugan dhararkiisa inay isla simaan si tartiib ah wax ugu sheega waad aragtay ciidaanka iyo gaalada intay hoos fadhiistaan isla simaan macnaha ilmaha marka isla sinteed wuxuu dareemayaa macnaha inaad qof bini aadan oo naxariis leh aad tahay oo asagana aanan xoog iyo muruq u sheeganaynin laakiin haddaad dushiisa soo kor istaagto adigoo macnaha qof weyn oo jismigaaga weyn yahay macnaha marka dushiisa soo istaagto wuxuu dareemayaa inuu isaguna wax yar yahay oo gabashu galaya iyo macnaha cabsi inuu ku koro ilmahana yani ujeedada ma aha inaan cabsi aan ku korino ma sha Allah ciyaalku marka waxa weeye waalidiintu inay waqtiga aad la qaadatid caruurta ilmaha markay 12 iyo inta ka badan marka ay sii gaaraan
waqti kuma hayaan adiga way weynaadeen saaxiibo cusub bay samaysanayaan iskuulaati waxbarashay galayaan interest kale ay samaysanayaan freetid iyo waxyaalo kale yani adiga waalidka waqti kuma haya marka xilliga aad ka faa'iideysan kartid oo waqti aad la qaadan kartid ilmahaaga waa hadeertaan marka waxaan dhihi lahaa dhamaantiin ka wada faa'iideysta waqti siiya caruurtiina arrimahan kaleetana xilligaad waqti u hesho baad samayn doontaa wax saas muhiim ma aha yani ilmahaaga iyo waxbarashadooda iyo horumarkooda wax ka muhiimsan malaha barakallahu fiik midda kale waxa weeye ciyaarta leek ciyaalku marka waa xilligan ay yar yihiin oo waliba aad idinku soo weydiiseen waa xilligan weeye xilliga caruurta aad wax ku shuban karto waa sidii sim card oo kale hadeertaan dhagahooda ku furan wax walba hooyaa tiri aabba yiri bay ku hayaan marka hadoo kale weeye xilliga aad ka faa'iideysan kartid oo waxa aad rabto aad ku shuban kartid walow dugsi quraan geysid ba walow aad muxuu ah mid Soomaali geysid ba walow aad uga sheekaysid noloshaada iyo dareenkaaga iyo meesha aad soo martay iyo waxaad ahaan jirtay iyo Soomaalinimadiisa yani identitygiisa hadeertaan inaad kor u soo qaadid waa xilliyadan waa xilliga ay saaxiib badan aysan lahayn hatta haday leeyihiin ciyaalka kale waalidiintood baa xakameeyay oo guryaha ku kala jiraan marka isaguna wuxuu jecel yahay in waalidiintiis ay xakameeyaan oo ay muxuu ahaa u sameeyaan wax uu ku farxo ama uu ku ciyaaro ama iyagaba la ciyaaro oo la boodo anigu bolibon baan la fiirsan jiray macnaha cartoon network ayaa caruurtayda la fiirsan jiray bolibon marka uu soo galo heesta bolibon marka ay dhahayso aniga iyaga kuraastan ku boodboodi jirnay yani ilaa maanta cunugayga nin weyn waaye ilaa maanta maskaxdooda way ku xiran tahay marka ay heestaas maqlaan ama aan ka wada sheekaysano maskaxdooda ay ku xiran tahay waxay dhihi jireen waxaad ahayd aabbo waalan duvogolan bay dhihi jireen ma garanaysaa so marka waa xiriir wanaagsan oo aniga iyaga naga dhexeeyay ma garanaysaa marka ay weynaadaan waxay helayaan oo ay samaysanayaan ayaga u qaasa waxa kale oo laga hadlay oo su'aalaha qaarkiin ay ku jiray cuntada oo kaleeto cuntada waxaad kala tashan kartaa horta waxyaalahaasiti haweenada waxa la dhahaa baan muushka oo mulisada oo meesha joogto ciyaalka iyaga ku sheegayso macnaha ilmaha waxaad u baahan tihiin cunto samansat la dhaho samansat waxa weeye waa cunto isu dheelitiran waa cunto macnaha kolhidraadkeeda leh muxuu ahaa vitamiinka iyo mineraalka iyo wixii dhan ay ku wada jiraan oo isu dheelitiran oo dhan walba maaha macnaha hilib fara badan ama bariis fara badan iyo waxaas maaha macnaha waxaad u raacdaa Talrix model waxa la dhahaa jira macnaha dhinacna aad qudaar garoon sokor ay dhinac saaran tahay dhinacna kolhidraatar bariiska baastada iyo ma garanaysaa waxaas saariyiin dhinacna proteinka sida uu kamid yahay kalluunka iyo hilibka oo kale uu kamid yahay marka dhinacaasi waxaad kala xiriiri kartaan isagoo sawir ah baad heli kartaan xitaa fikrad aad ka qaadan kartaa waxbaad ka bedeli kartaa waxna waad ku dari kartaa hadii ilaahay kaamarada waxa iga duubay saaxiibkay ruucadaagi maxamed cawad oo isaguna halkan jooga aad ma santahay saaxiib insha Allah barnaamij ku xigo ma garanayo hadeertaan because barnaamijkan waxa weeye hadda aan duubay waxa weeye oo mid dhextaal ah su'aalo igu batay aniga oo aan aruuriyay oo aan is-iri dadka maaragtay la qaybso insha Allah waxaan rajeynayaa cajaldan inay nagu dheeraanin aad iyo aad ayaad mahadsantihiin daawashadeena aad daawateen insha Allah waxaan rajeynayaa inaad qoraalkiina halkan aad ku qortaan oo aad commentigiina aad ka bixisaan ha ilaawin inaad la wadaagtid waalidiinta kale waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.